markan muuqaalkan waxaa diiradda ku saari doonaa kala goynta tirooyinka dhafan kuwaas oo hooseyahoodu kala duwan yahay oo maanta waxay noo qoran waa subtracting kala jaridda ama kala goynta mixed numbers tirooyinka dhafan oo waa kuwana tirooyinka qaab nooca markay u qoran yihiin ayaa waxaa loo yaqaanaa mixed numbers laha ugu horreyn marka waxaa samayn doonaa 9 inaa ku dhufano 6 ay 9 ku dhufo 6 meeqa waa marka waa 54 waxaa ku dari doonaa sareeyaha oo 3 ah waxaa noo imaan doono 57 hooseyaha 9 iyo soo guuri marka waxaa ka jari doonaa mar kale 5 oo lagu dhufto maxaa 10 iidan meeqa waa 50 oo lagu dar 2 meeqa waa iidan waa 52 hooseeya waxaa haysanaa 5 asana hooseeya inoo soo qaad oo kaliya waxaa sameeyay inaa baabi'ina maxaa horgalayaasha waa kadib waxaa dhigi doonaa kan hooseeyay 9 waay kan hooseeyay waxaa dhigi doonaa maxaa 5 waay maadaama labadaba hooseeya ay kala duwan yihiin marka hooseeyaha waxaa u raadin doonaa maxaa LCM marka waxaa dhigi doonaa 9 LCM kii wadaaga maxaa ugu horreyn waxaa saari doonaa 3 9 u qaybi 3 maxaa waa 3 waay 5 3 ma loo qaybin karaa may 5 hoos keen marka waxaa saari doonaa 3 3 u qaybi waxaa waa 1 waay ay 5 3 u qaybi ma loo qaybin karo kadib 5 hoos keen mar kale ugu dambeyn waxaa saari doonaa 5 waay halkan hoos inoo keen haddii 5 u qaybin 5 waxaa noo imaanaa 1 waay kadib waxaa dhigi doonaa marka 3 ku dhufo 3 meeqa waay waa 9 ay 9 ku dhufo 5 meeqa waa 45 waay LCM kii wadaaga marka 9 iyo 5 wuxuu noqonaa waa 45 waxa dhigi doonaa LCM ka soo helna labadan tiro ay wadaagi karaan waa 45 kadib 45 waxa u qaybin doonaa 9 oo waxa noo imaan doona waa 5 kadib 5 waxay ku dhacaysaa 57 oo waxa dhigi doonaa 57 oo lagu dhufto maxaa 5 5 ku dhufto 7 maxaa 35 waay 5 ku dhufo 5 25 3 ku dar meeqa marka waa 28 oo waxa soo helna maxaa waa 285 oo laga jaray mar kale waxa samayn doonaa 45 waxa u qaybin doonaa 5 iidana maxaa waa 9 waa 9 waxay ku dhacaysaa 52 oo waxa dhigi doonaa 52 oo lagu dhufto maxaa waa 9 ay 9 ku dhufo 28 waay 9 ku dhufo 5 45 halka uu tugay meeqa waa 46 oo iidana waxa soo helna maxaa waa 468 kadib waxa dhigi doonaa equal marka maadaama 285 aan laga jari karin 468 oo waxa dhigi doonaa 468 waxa ka jirta 285 oo maxaa noo imaanaya marka oo waxa noo imaanaya maxaa waa 183 laakiin maxaa raacay marka waxa raacay minus maadaama midkan uu weyn yahay oo jawaabtu waxa raacay marka minus way oo waxa loo qaybinaa marka 45 oo jawaabta soo helna waxa waa minus 183 oo loo qaybiyo 45 halaasoo kaliya ay si aan u sii fahanno midaan iidan ah sameeyno oo waxay noo qoran 7 idil 5 loo qaybiyo 12 oo laga jaray 2 idil 1 loo qaybiyo 2 ugu horreyn waxaa samayn doonaa in 12 ah ku dhufano 7 oo waxa noo imaanaa waa 84 waxa ku dari doonaa 5 oo waxa noo imaanaa 89 hooseey waxa haysanaa 12 hooseey ay soo guuri marka 12 inoo soo qaad waxa ka jari doonaa mar kale 2 waxay ku dhacaysaa 2 iidan waxa noo imaanaa 4 waxa ku dari doonaa sareeyaha 1 waxa noo imaanaa 5 waay hooseey 2 markaas ii soo guuri marka kadib waxa dhigi doonaa marka 12 iyo 2 marka LCM ka wadaaga meeqa waa marka waxa dhayna LCM ka muxuu yahay 12 iyo 2 marka ugu horreyn waxa saari doonaa 2 12 waxa loo qaybinaa 2 waxa noo imaanaa waa 6 waay ay 2 qaybi 2 maxaa waa 1 waay kadib marka waxa saari doonaa 2 ay 6 qaybi 2 waxa imaanaa 3 halkan hoos inoo keen ugu dambeyn waxa saari doonaa 3 u qaybi maxaa marka 1 waay kadib waxa dhayna marka 2 ku dhufo 2 meeqa waa 4 waay 4 ku dhufo 3 meeqa waa 12 LCM ka wadaaga marka 12 iyo 2 muxuu noqonaa waa 12 hadda marka waxa dhigi doonaa maxaa waa 12 soo qaad waxa u qaybisaa 12 waxa ku imaanaa 1 waay 1 ku dhufo maxaa waa 89 waxa noo imaanaa waa 89 oo kaliya waxa laga jaraa mar kale 12 waxa u qaybin doonaa 2 iidan waxa waa 6 waay 6 ku dhufo 5 meeqa marka waa 30 kadib waxa dhigi doonaa equal haddii 89 aan ka jarno 30 maxaa noo imaanaa 89 oo laga jaro 30 9 ka jar ewer maxaa imaanaa waa 9 waay 8 ka jar 3 na maxaa imaanaa 5 waxa noo imaanaa maxaa 59 oo loo qaybiyo hooseeyaha meeqa waa 12 oo jawaabta soo helnay halaasoo kaliya